waa dharaar muddo dheer ay dhowrayeen dadka Soomaaliyeed ciidamada guutada 77 ee ilaalada madaxda qaranka ayaa maanta si rasmi ah mas'uuliyadda amniga uga wareegay ciidamada ADMIS xarunta madaxtooyada iyo sidoo kale xarunta golaha shacabka baarlamaanka federaalka Soomaaliya oo ay maamulayeen ama ay amnigeeda ka shaqeynayeen muddo ku dhow 16 sano ciidamada midowga Afrika ka socda ee kamidka ah hawlgalka ADMIS ee dhamaadka maraya qorshahan waxa uu qayb ka yahay qorshaha dhimidda ciidamada midowga Afrika ee ku sugan dalka Soomaaliya oo qorshuhu yahay in gabi ahaan ay dalka ka baxaan marka la gaaro dhamaadka sanadka 2024 sida uu horay u sheegay madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Dr. Xasan Sheekh Maxamuud munaasabad kooban oo ka dhacday madaxtooyada qaranka ayay maantay ciidamada 77 ee guutada ilaalada madaxda qaranka ay amniga uga wareegeen ciidamada ADMIS ee ku sugnaa baraha amniga laga hubiyo ee madaxtooyada iyo sidoo kale xarunta golaha shacabka waxaa ka qayb galay munaasabad kooban oo madaxtooyada ka dhacday taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed la taliyaha amniga qaranka madaxweynaha Jamhuuriyadda mas'uuliyiin ka socday beesha caalamka agaasimaha guud ee madaxtooyada qaranka iyo mas'uuliyiin kale kadib booqashada mas'uuliyiintan ee la wareegidda ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed baraha hubinta amniga ee madaxtooyada iyo xarunta golaha shacabka waxaa kulan ku qabsoomay xafiiska amniga qaranka oo ay ka qayb galeen mas'uuliyiin kala duwan halkaasi oo ka dhacay saxiixa rasmiga ah ee ciidamada ADMIS ay ku baneeyeen maantay xarumahoodii ay ka ilaali jireen madaxtooyada qaranka waxay noo tahay maanta maalin aad runtii farxad ah inaan la wareegno amnigii qaybo ka mid ah dalka oo muddada dheer oo 16 sano iyo in ka badana ay hayeen ciidamada AMISOM beriga hore haddana ADMIS waxay noo tahay marka sharaf maanta inaan meelihii ugu muhiimsanay dalka gaar ahaan madaxtooyadii baarlamaankii iyo meelo kale oo badan inaan la wareegno maanta aad ay sharaf noogu tahay sidoo kale goobtan waxaa shirka gabagabadiisa ka soo qayb galay madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Dr. Xasan Sheekh Maxamuud oo warbixin ka dhageystay mas'uuliyiinta ka soo shaqeeyay barnaamijkan oo muddo soo socday la taliyaha amniga qaranka madaxweynaha Jamhuuriyadda Mudane Xuseen Macalin oo warbaahinta qaranka la hadlay kadib gunaanadka munaasabadan ayaa faahfaahiyay qaabka ay ciidamadan uga baxeen dalka guud ahaan isaga oo tilmaamay in qorshuhu yahay in dhamaadka December 2024 ay dalka oo idil baneeyaan ciidamada Afrika waxaa halkan ku soo gabagaboobay munaasabad kooban oo ay ku kala wareegayeen ciidamada qaranka militariga iyo booliiska oo lagala wareegayay ciidamada ADMIS gaar ahaan qaybta Uganda UPDF-ta munaasabadaas oo munaasabad aad u qiimo badnayd ahayd maanta ku soo aaday maalin ay Soomaalidu aad u sugaysay in ay dawladda Soomaaliya ay ka run sheegto ka dhab sheegto inay mas'uuliyadda amniga dalka ay la wareegto si dhameystiran goobtan lala wareegay waa dabcan goob kooban laakiin waa xaruntii dalka looga talinayay Villa Soomaaliya iyo baarlamaanka dalka marka muhiimadeeda istiraatiiji ayaa ay maanta u tahay tusaale fiican ama dhab ah in arinta kala wareegga iyo kala guurka ciidamada ADMIS ay arin dhameystirmaysa waqtiga loogu talagalay tani ayaa ku timaaday dadaal ay muddo dheer sameeyeen madaxda qaranka iyo sidoo kale dhismaha iyo tayeenta ciidamada qaranka oo heer wanaagsan soo gaaray waana natiijo tilmaamaysa halka dalkeenu maanta taagan yahay Shucayb Maxamed warbaahinta qaranka Soomaaliyeed madaxtooyada dalka